بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا wanaagsan daawada meel kasto muuqaalkayga ka soo gaarayba halkan waa TV-ga madaxa banaan ee Bulsho TV xaruntiisa magaalada Hargeysa. daawada waxaan soo gaarnay xilliga idin soo gudbin jirnay war dalka gudihiisa iyo dibadiisaba habeenkan caawa wixii aan idin keenay. daawada warka caawa waxa idin soo jeedin doono anigoo Maxamed Siciid Axmed ah. qodobada caawa warkay ugu door karoon habeenkan caawa aad ku daawan doontaan waxa kamid ah وياها arrimaha dibadda dalka Mareykanka oo booqasho ku tagtay koonfurta dalkaasi Suudaan. wakiilkii nabadda ee qaramada midoobay jaamacadda Carabta u qaabilsanaa arrimaha Suuriya Kofi Annan ayaa maanta iscaasilay. maxkamadda sare dalkaasi Brazil ayaa la soo taagay مسؤولين سرو كتير سنة ترى حكومة دولة دلكاسي برازيل. والهوينها وقوية كوريا يا غير مدى مدوبة كتل بداي. يقول مدك تقل لسوق على دلكيسا. كم بدا كناع ستدواوين دلكاسي روشكا يا وسوي جدية. xukuumadda dalkaasi Ruushka inayna wax faragelin ku sameeyeen ganacsigiisa. daawadayaal wali halkan nagala socotaan waa TV-ga madaxa banaan ee Bulsho TV xaruntiisa magaalada Hargeysa. maqal wacan aragti wanaagsan ayaanu leenahay mar labaad. Ramadaan Kariim daawadayaal intaas waxa ay qaar kamid ah qodobada caawarkan ugu door karoon iminkii aatana warkii oo fidsan. وياها arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa booqasho ku tagtay koonfurta dalkaasi Suudaan. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Hillary Clinton ayaa booqasho gaaban ku timi caasimadda Juba ee dalka koonfurta Suudaan maanta oo Jimco ah iyadoo ugu hambalyeysay sanad guurada koowaad ee xornimadooda. waxaana noqonaysaa sarkaalkii ugu horeeyay ee dawladda Mareykanka ka socda ee booqasho ku yimid tan iyo intay xornimada ka qaateen bishii July ee sanadkii 2011. Mr. Hillary Clinton oo hadda joogta dalkii toddobaad ee booqashada wadamada Afrika waxaana kulamo la qaadatay madaxweynaha dalka Suudaan Salva Kiir iyo madax ka tirsan xukuumadda. labada Suudaan ayaa wali aan ka heshiin muranka soodimada iyo waliba shidaalka u dhaxeeya labada dal. sidoo kalena dawladda Mareykanka ayaa doonaysa inay kulan u dhigto labada madaxweyne ee Salva Kiir iyo Umar Hassan al-Bashir si loo soo dhameeyo khilaafka. si kastaba ha ahaatee Mareykanka waxa uu ku boorinayaa Suudaanta iyo koonfurta Suudaan inay kordhiyaan dadaalka lagu xalinayo khilaafka u dhaxeeya ee labada dhinac, taasi oo keenaya inay ku dhawaato dagaal weyn oo dhaxmara sanadkan horaantiisa. si kastaba ha ahaatee Mareykanka waxa uu ku boorinayaa Suudaan iyo koonfurta Suudaan inay kordhiyaan dadaalka lagu xalinayo khilaafka u dhaxeeya labada dhinac. wakiilkii nabadda ee qaramada midoobay iyo jaamacadda u qaabilsanaa arrimaha Suuriya Kofi Annan ayaa maanta iscaasilay. wakiilka caalamiga ee qaramada midoobay iyo jaamacadda Carabta u qaabilsanaa arrimaha Suuriya Kofi Annan ayaa maanta iscaasilay. Kofi Annan oo ahaa ergeyga caalamiga ee nabadda ee qaramada midoobay iyo jaamacadda Carabta ayaa maanta soo gudbiyay inuu iscaasilay xilkaasi kadib markii waxba ka qaban waayay nabad ku soo dabaalida dalkaasi Suuriya ee 17 bilood ee dagaaladu aafiyeen dalkaasi Suuriya. hadal uu jeediyay magaalada Geneva ayaa waxa uu tilmaamay in xaaladda Syria isku sii bedelayso mid military. golaha ammaanka ee qaramada midoobayna ay weeqeen hawshii uu ka waday dalkaasi Suuriya iyagoo oo wali dalka Suuriya ay ka socdaan dagaal baahsan oo u dhaxeeya mucaaradka iyo ciidamada dawladda. sidoo kale waxaa la sheegayaa in iscaasilaadaasi Kofi Annan ay ka dambeysay war saxaafadeed ka soo baxay shirkii 15 dal ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo maqaal lagu daabacay wargeys laga leeyahay dalkaasi Ingiriiska Daily Financial Times maalintii Khamiistii. maxkamadda sare dalkaasi Brazil ayaa la soo taagay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda dalkaasi Brazil.
suufafaynta warkaasi ku eegay wariye Axmed Sadar kadib 7 sano waxaa maxkamadda sare ee dalka Brazil ka bilaamatay dacwad xasaasi ah oo ka dambeysay falal ballaaran oo musuqmaasuq oo ay ku kaceen madaxdii sarsare ee xilligii talada dalka wahayay madaxweynihii hore ee bidixda dhexe Lucy Lula da Silva kaasi oo qabsaday xafiiska sanadii bishii January 2003 iyadoo wakaalada saxaafadda dalkaasi ay sheegtay in 83 mas'uul oo iskugu jira 8 iyo 30 wasiiro ah iyo waliba madax ka mid ah baarlamaanka dalkaasi iyo ganacsato iyo mas'uuliyiin bangiyo caalami ah ay maxkamadda sare ay u soo gudbiyeen dacwado intii u dhaxaysay sanadihii 2002 iyo 2003 si kastaba ha ahaatee xaakinka maxkamadda sare Carlos Aylers ayaa furay dacwadda iyadoo ay dacwadani noqonayso tii musuqmaasuq ee ugu weyneed ee soo marta dalka Brazil ayaa haddii ay mas'uuliyiintan lagu helo falkan lagu xukumi doonaa in ka badan 45 sano oo xarig ah madaxweynaha waqooyiga Kuuriya ayaa qaramada Midoobay ka dalbaday in gurmad degdeg lala soo gaaro dalkiisa wakiilka caalamiga ee qaramada midoobay ee Jaamacadda Carabta u qaabilsana arrimaha Suuriya Kofi Annan ayaa maanta iscasilay Kofi Annan oo ahaa ergiga caalamiga ee nabadda ee qaramada midoobay iyo Jaamacadda Carabta ayaa maanta soo gudbiyay inuu iscasilay xilkaasi kadib markii waxba ka qaban waayay nabad ku soo dabaalida dalkaasi Suuriya ee 17 bilood ee dagaaladu aafiyeen dalkaasi Suuriya hadal uu jeediyay magaalada Geneva ayaa waxa uu tilmaamay in xaaladda Syria isku sii bedelayso mid military golaha ammaanka ee qaramada midoobayna ay weeqeen hawshii uu ka waday dalkaasi Suuriya iyagoo oo wali dalka Suuriya ay ka socdaan dagaalo baahsan oo u dhaxeeya mucaaradka iyo ciidamada dawladda sidoo kale waxa la sheegayaa in iscasilaadaasi Kofi Annan ay ka dambeysay war saxaafadeed ka soo baxay shirkii 15 dal ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo maqaal lagu daabacay wargeys laga leeyahay dalkaasi Ingiriiska Daily Financial Times maalintii Khamiistii mid ka mid ah ganacsatada waaweyn ee dalkaasi Ruushka ayaa ugu baaqay xukuumadda dalkaasi Ruushka inayna wax faragelin ku sameeynin ganacsigiisa suufafaynta warkaasi ku eegay wariye Cabdisalaam Cabdirashiid ganacsadaha iyo waliba taajirka ka caanka ah dalka Ruushka oo ahaan jiray xubin sare oo ka tirsan waaxda sirdoonka ee KGB ee dalkaasi Ruushka Alexander Lebev ayaa ugu baaqay madaxda sare ee dalkaasi Ruushka in aan la soo faragelin ganacsigiisa iyo waliba in aan la joojin wax soo saarkiisa dhaqaale Alexander ayaa lagu tirinayaa dadka sida aadka uga soo horjeeda siyaasadda madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin isagoo waliba dadka ugu qalisan dalkaasi Ruushka oo leh warshado iyo waliba shirkado kala duwan oo ka howlgala dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in aan waqtigan u haynin in la xiray Alexander waa mulkiilaha wargeysyada Independent iyo London Evening Standard isagoo ka cabsi qaba in jeelka loo taxaabo waxna ka qoray kriminalka dalkaasi Ruushka daawadayaasha sharafta iyo qadarinta iyo xushmada wanaga mudan oo intaasi waxa ku eeg war dalka gudihiisa iyo dibadiisa habeenkan caawa wixii naga soo gaaray oo si toos ah uga daawaneyseen TV-ga madaxa banaan ee Bulsha TV xaruntiisa magaalada Hargeysa daawadayaal warkan warka xigeentan mar labaad hawada dib ugu kulmayno aniga iyo saxaabtii kale ee tabinta warka igala qayb qaatay Bulsha TV ba waxaan ku dhaafinaa waqtigu hayno hada mid wanaagsan